السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal meel kastoo adduunka ka joogtaan waxaa nagala socotaan boggeena aan facebook ku leenahay ee waano.so iyo channel youtube-keena waano production. maanta waxaan doonayaa inaan halkan kasoo gudbiyo waano kooban oo ku socoto lamaanayaasha leh youtube ama kuwa hadda ku fikiraya inay samaystaan youtube. waxaan ognahay inay nolosha ku qurux badan tahay xilliga lamaanaha, weliba sababta ay lamaanaha u noqdeen ay tahay in ay helaan nolol qurux badan oo saacado leh oo deganaan leh. laakiin maanta waxaa aad u batay lamaanayaasha leh youtube. laba su'aal ayaa la isweydiinayaa. su-aasha koowaad ayaa ah waa maxay faa'iidada ay ka helaan youtube, isticmaalka youtube, iyo laba khasaaraha uga yimid lamaanayaasha youtube-ka. su-aasha koowaad haddii aan iska jawaabin ayaa ah kow inay ka helaan youtube-ka lacag iyo inay magac yeesheen oo adduunka dhan laga yaqaan. su-aasha labaad ayaa waa maxay khasaaraha uga yimid youtube-ka. khasaaraha youtube uga yimid lama soo koobi karo. waxaa ka mid ah noloshii aan deganaan lahayn oo noloshii aan lagu xasilaynin, stress, lacag xaaraan ay cunaan sababtoo ah muuqaalada ay soo gelshaan waxaa saaray xayeysiin xaaraan ah. saas daraaddeed waxaa ka imaanaysa in lacag xaaraan cunaan, iyo xaaskii aan xijaabnayn oo maalin daa'im ah ay daawanaya rag ajaanib ah oo kumanaan gaaraya. dumarkii oo xishood ka tagay isku dhac joogta ah dumarkii iyo raggii isqaba. dhalinyarada oo Soomaaliyeed oo dhibaatooyin uga imaanaya daawashada muuqaaladaas ay soo dhigaan bartooda youtube-ka ah, maadaama ay dhalinyaro badan ay jirto aan guursanin. su-aasha haddii aan isbarbar dhigin faa'iidada iyo khasaaraha ka yimid youtube-ka ayaa ah in khasaarihiisu aad iyo aad uga far badan yahay faa'iidadiisa. jawaabta ayaa mid iska fudud, waa in youtube-ka dhibaatada uga yimid dhammaanaha uu aad iyo aad u far badan yahay. ragga qaar ayaa ku andacoonaya in lamaanayaasha youtube-yada siiba ragga dumarka inay madaxooda asturan yahay intooda badan, laakiin madaxu waa la asturaa, xijaab ma ahan. tusaale haddii aan soo qaadano ninka doonaya inuu xaaskiisa ku sameeyo barank, waxaa qasab ah xaaskiisu aan xijaabnayn inuu barankaas ka duubo, taasoo ah in maalin daa'im ah ay kasbanayaan kumanaan kun oo dembi ah inay kororsanayaan. haddaba in maxay ahayd noloshii quruxda badneed la waayo, deganaanshihii la waayo, xaaraan la cuno, stress lagu noolaado, alloo maalin kasta laga sii fogaado, taas uu sii dheer tahay qabriga qiyaamo sii sugaysa, iyo in magac la yeesho lacag xaaraana la cuno. ma laba isbarbar dhigaa? idinka ayaa idiin deenaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.